xogayaha biyaha ee xisbiga mucaaradka ee wadani Bashiir Cumar Geelle oo maanta xarunta xisbigaasi warbaahinta kula hadlay ayaa ka hadlay biyo la'aan uu sheegay in 30 sano ee ugu dambeeyay ay ka jirto caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa waxaana uu sheegay in mashaariic kala duwan oo biyo loogu soo saarayay caasimadda la musuqmaasuqay waxa kale uu dhaliilo u jeediyay mas'uuliyiinta wakaaladda biyaha ee Hargeysa waana kan isagoo xogayuhu arrimahaasi ka hadlaya magaalada Hargeysa oo caasimadii wadanka ahi waxay biyo leedahay 30 sanadood u dambeeyay 30 sanadood ee Hargeysa biyo leedahay haddaan ka soo bilaabo intii dawladda kulmiye joogtay lacag badan baa ku baxay lacagahaas oo dhamaantood wax ka qabsoomay ama biyo maanta Hargeysa heshay aanay jirin lacagahaasi waxay u kala horeeyeen dawladda kulmiye markii ay talada la wareegtay 2010 waxa diyaar ahaa oo lacag loogu talagalay biyaha Hargeysa diyaar ahaa $20 milyan 20 milyan oo ay bixisay EU-da ama European Union-ka waxba kama fulin waxa ku xigtay Imaaraadka 15 milyan mashruucii fadeexadii caanka noqotay xunba weyne ayuu ku dhamaaday kaasina uu guul daraystay waxa ku xigtay SDF-ta oo lacag 7 milyan 8 milyan ilaa 12 milyan bixisay iyana waxba kama fulin waxa u dambeeyay waxa 30 milyan oo euro Jarmalka bixiyay taasina meel alla meel ay martay lama hayo lacag badan oo budgetka Soomaaliland loo qoondeeyay baa jira meesha biyaha laga soo qaadaya waa geedeeb loo 20 kilomitir Hargeysa u jirta 20 kilomitir ee Hargeysa u jirto iyo xadiga lacagaha ku baxay iyo biyalaanta wali jirta wax iswaafaqi kara maaha haddaba waxa jira maxaa dadku waxay isweydiinayaan maxaa sababay in waxaan oo lacaga ay ku baxaan Hargeysa haddana Hargeysa ay wali biyo leedahay lacagaha soo dhamina ay in soo galeen laakiin lama suqmaasuqay sababtu waa musuqa waxa ka koowa wasaaradii biyaha ayaan waxa halka ku hayaa oo de wasaaradii guud ee biyaha ee dalka biyaha u qaabilsanayd ayaa waxaan ku hayaa shaqaalaheedii ayaa waxay sameysteen shirkadaas oo ah shirkad musuq loogu talagalay in lagu qaato mashaariicda ay bixiso hay'adda UNICEF shirkadaas waxa la yiraahdaa Service Delivery Contracts and Consultant Company waxa dhamaanteed madax ka ah oo aan halka idinku tusi doono aan ku hayo halkan waxa haysta 5 nin oo shaqaalaha wasaaradda oo wasaaradda ka tirsan oo ragii wasaaradda in badan ka shaqeynayay 5 nin oo magacyadoodu kala yihiin Saciid Axmed Jibriil oo ah ninka gudoomiyaha ah Cabdiraxmaan Faarax Cumar oo gudoomiye ku-xigeenka Khadar Cali Xasan oo admin finance-ka ugu qoran Cabdiraxmaan Cabdisalaan Sheekh Cali oo project manager ah iyo Cabdirasaaq Maxamed Cali oo isna member ka mid ah shantaani waxay ka mid yihiin shantuba sida halkan aan tusi doono waxay ka mid yihiin wasaaradda biyaha haddana mashaariicda ay qaateen kontraagyada ay qaateen halkan aan tusi doona kontraagyo ay ka qaataan wasaaradda waana shaqaalihii waana mashaariicdii loogu talagalay in la xayeysiiyo cid kale fuliso lacagtooda halkaas uun bay wasaaradda uun ma soo dhaafto marka musuqmaasuqa biyaha ragaadiyay waxyaabaha kowka ah waxa kamid ah wasaaradihii iyo wakaaladii u xil saaraa ee heer gobol iyo wasaaradii guud oo dhamaantood noqday goobo musuq fadhiyo oo aan wax talaabo ah oo horumarina la qaadayn wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh Saciid Aadan Jaamac telefishinka on cable Hargeysa magacaygu waa Suldaan magacaygu waa Seeraar isku si ayaan u hadalaa isku sina waanu libisanaa isku midna waanu nahay anigu waxaan isticmaalaa Samtel isagu ma uu isticmaalo Samtel anigu in badan baan Samtel ku hadli karaa balse isagu sidaa ma sameyn karayo warmaahe run miya waa runtay 24 saacadood waxaan ku hadlaa 2500 oo shilin oo waa bilaash bishii oo dhan waxaan ku hadlaa $5 oo kali ah caadi ma aha maxaad mar hore igu sheegi weyday fikir hadal oo hadaalin maalinta oo dhan ku hadal 2500 oo shilinka Soomaaliland ama bishii oo dhan ku hadal $5 oo kaliya Samtel shirkadda dadweynaha